السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير سوف ترمي كستود يدك جوتنا ديات بني سمنا ولكن على الجامعة مرة لوادي مقال عصب إن شاء الله بإذن الله الكريم. إلهي وحنا نقرجينا إن شاء الله كنا عذرنا ولا هي عافية كعافية قبنا عافيتك الله والسيادية. أنت بل إن شاء الله ما أنت كهذه دونا ويل سوماليات أو يوتيوبرا وكل أي حنوك كورونا فيروسكو معنا حنوك أنا في الدنيا كلنا يا فيه. مركانا وحنوك هذا إن شاء الله يميت كان لو جري إلهي بأوك إن ندعينه بإذن الله الكريم. أنا جاي دمان ummadda inta daawan doonta fiidiyogan waxaan igu codsanaya barnaamijkan insha allah inaad sii share garaysiin subscribe-tana saartiin insha allah wixii fikraad qabtiin insha allah commentiga noogu soo qortiin biidmillahi kariim isagana waanu ducaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inuu ilaahay caafiyo waxaan u rajaynaynaa insha allah caafimaad qab inuu kusoo noqdo saxadiisii ama goobyuu ka hadi jiray ama shaqooyinkiisii iyo nidaamkiisii insha allah biidmillahi kariim isagana bal waan filinaa fiidiyooga uu soo dhigayna waan eegi doonaa insha allah waxay u soo kordhay in shalay markii aan cudurkii aan koronaha ama abuuqii aan iska soo baaray testigiisa aan video idiin soo dhigay in jawaabtiisii ay noqotay mid positive ah ama cudurkii la leeyahay waa laga helay daqiiqada kadibna ay soo gaari doonaan insha allah ragga u qaabilsan dhankan caafimaadka dowladda Malaysia alxamdulillah waxba ka waa wax ilaahay ugu talagalay waana ku qanacsanahay ismaan lahayn cudurkan aan laga heli doonaa mise markii jawaabtan ay soo baxdo kale wuxuu noqon doonaa in corona laga helo ismaan lahayn sababtoo ah qof caadi ah waxba igama aan haleysnayn waa diga arkaysan video ay soo duba inkastoo aan ka yara gaabi dhankan Instagram-ka maadaama aan iska dareemay daal fara badan oo ah in garoon aad u weyn oo idin sayd ah aan baroon ku soo yeelay haddana dabeel aad u xoog badan ay socotay jirgo fara badan aan dareemay marka ismaan lahayn madax xanuunka yarka ee ku imaanaya ama qandhada yarka ku haysa waa cudurkaas markaan dad cudurkaas qabana ama markaas hayn aan la sheekaystana wixii ayaga aysan dareemayaan oo kale in ururkii wada jeedina saxabay wiilku waa wiilkaasi waa wiil Soomaaliyeed Malaysia ku nool yahay kulay soo sheegay safar buu ahaa wuxuuna u socday inuu tago doonay Turkiga laakiin waxa soo gaaray baaritaankii uu sameeyay intuuna tagin ayaa lagu ogaaday inuu positive yahay ama xanuunku uu qabo sidaas uu macnaha safarkiisii nidaamkiisa uga booqday video soo ka hadlaya markaasi laba marxaladood baan u kala qaadi doonaa mid waa xanuunkiisa horta ilaahay waxaan uga rajaynaynaa wiilkan inuu ilaahay caafiyo oo caafimaad degdeg u siiyo insha Allah biidmillahi kariim waana ilaahayna wuxuu uga dhigayaa insha Allah dambi dhaaf qofku markuu xanuunsado muuminka xanuunka waxa lagaga maydhaa dambiga dambi dhaaf ilaahay uga dhiga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu dambi dhaaf uga dhigo insha Allah wax dhibaatayna gaari mayso xanuunkiisana wuxuu iska noqon doonaa wax sidii hargabidii markii hore nagu dhici jirtoon ilaahay baan uga baryaynaa insha Allah بإذن الله الكريم horta isaga taasaan ugu ducaynaa abshir dhamaan leenahay hadaladiisa qaybta dambe wuxuu ku daray inkastoo videoga soo dhigin laakiin qaybta dambe wuxuu ku daray xoogaa dardaarana oo macnaha haddii ilaahay jeclaado buu macnaha qof kasta maalin buu dhashaa maalina uu dhinta akhi ilaahay baa adduunyadan wixii uu ilaahay kuugu talagalay adigoon dhamaysan ka tegi maysid insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inaad بإذن الله كريم الدون أنت إلهي كوو تلقى قرح بدنا تكون ولاته وأنا كصعف ما ساقل بقى تاكلي وناك بدنا مكور شيننا ويل سوماليات باتاي ويل داير باتاي ويل دال بدن باتاي إلهي وحنا كقبرنا إن شاء الله إنه عافية صدق ورقصة بدنا إلهي وعافية أنا توصل كعضو أنا محن كود هذا صحة هذا كسر نقطة يشكون كأنه نور عادي إن شاء الله بإذن الله كريم أنت إلهي كوو تلقى لنا ودنا نسا فرحت ما نتكون قادم بإذن الله كريم إلهي بانك عافية inta isaga hadalkiisa leenahay qodobka kale soo qaadana waxa weeye waa wacyi gelin waaye wiilkani magaalo ka yimid bulshadu socday macnaha fikrigiisa waxa soo dhacday inuu isbaadho maadaama uu dad u tagayo wadan uu ka tagayo wadan kalena uu tagayo bal inuu isbaadho macnaha taas waxa weeyaan wax aad u wanaagsan way alxamdulillah ilaahay baa waafajay waxay maanta haddii uu socon lahaa bulshada kale dad jecel oo dhalinyaro fara badan
وماشي كنا والباو إيمان لهاي دتكاس ولا شير قرين لها متفر بدن ولا نقولنا إن معناها ودد كلا راجي عنت على عنيا ميل بالو ذتجي والو ضبق وحاصل إن واحد لقى بينو كل حفاف لها تا والسمين لفتيدنا ونوقهم بليننا ووحو ونكسن قفك إنه مركاي مرحلة جرتو إنه وسكشكيو إنه سبارو إنه gurigiisa joogo aad baanu macnaha oo alxamdulillah waan ku hambalyeynana waana talaabo waayo waxa laga yaabaa qof walaalkii oo kale inuu la tagi lahaa laakiin waxaasoo dhan uu baajay waka la soo joogsaday isagoo xanuunsanaya mikrafoon soo qabsaday bulshadiisu sheegaya in xanuunku ku dhacay halka uu jiro waa wax aad u qurux badan waxaan malay dadka in yar baa laga helaa wax darka saayimiga xiliyadan xadka jooga qof baa uu iska shakiyay haddana uu iska soconaya bulshada u dhex soconaya waxaa si wanaagsana marka inagoo taa uga faa'iideysanana imiga wadamadan reer galbeedka ama urbadan ama dhulkan qabobuhu ka jiro bahalku aad buu soo farabatay marka waxaan rajaynaynaa insha allah bidmillahi kariim inuu ilaahay caafiyo isagana laakiin bulshadeennan markaa wadamadan ku nool ee joogtaa in taxadir badan samayso waayo nambarkii markii hore uu ku dhacay nambarka hadda uu ku dhacay way kala aad bay u kala duwan tahay aad bay u kala fog yihiin marka waxaan bulshada ku goorinaynaa qof kastaba bal inay yareeyaan isku tag iyo waxyaabahaasi waa macnaha inaga waana uun waayo anuu haddaan matalan baxo oo dad la soo la sheergaray ama la soo fadhiisto la soo qoslo la soo farxo la soo joogo de maanta oo dhan meelahaas ka soo meeraysto soo noqdo gurigeyga yimaado anigoo ama xanuunsanaya ama aan jidhkayga ka muuqan waxa laga yaabaa inuu xaafadii ciyaalkii iyo reerkii iyo ehelkayga ama qaar baa waalidkoogii iyo la nool dadkoogii waxa laga yaabaa qof weyn oo waalid inaad u keento waxa laga yaabaa qofka inuu ku dhaco waxa laga yaabaa qofkaas inuu qaadi karin awood ba aanu lahayn uu ku hayo haddaad adigu xitaa xogaa is yarayso marka waxa qurux badan bulshadeennu inay waxoogaa aad uga taxadiraan xilligan xaadirkii la joogo ee dhulkuna qabowga yahay bal in dadaal badan la sameeyo aad baa looga dayrinayaa waxaana kugu filan adigoo kugu dhacood ama shaqadaadii iyo carruurtaadii in iskuuladii ka soo fadhiiso reerku ku dhacood mushkilad kale ama karanteel gashood وروح كلا سكنا فوت كان كانت تكرين معناه هو نب أنت عليك وحاجة قرح بدن إن تقولي جاكو إجاتود إلهي كبر يدود سلدات كتود معناها قف دور صانو ولا كسنا نقطه على جابا وحملها كلها تقول وتيلاد إنه إلهي كابت بعد الحمد لله رب العالمين وانا جوانو خذوا ضرنا واللي بقى تتكن الصوماليات والضمدن وحقائق بعد إيش الله وهايا مرة البحر كساميلها ورباهين تحبال الصور دي الصومالي بس أنا وحوق دعوة مركوا حق قرح بدن تتكنه إن شاء الله بإذن الله الكريم إن يسأل عليان أنت يسأل عليان كران إله عسى وجلاله وحلاليه والكان وندعيننا إلهي عافيه إن فيديو وان سوق بقبلنا إن شاء الله مرة بنا نصير ديراضو قرشين نودن وحاله وذا قبلنا كهذا الله واللي بكارهان كاسي إنت وعي قل إنتانا وإنتي نقول بنانا يدون وجيت كلون كلنا مجرتو ومدى الصوماليات وحن رجينا يقوم النمو حافمات رواقه ينمو انت عذرا الله عافيه انت دبان الله دبتا كساره ودكننا الله خير نوغ بدلو ويل كان الله عافيه ان شاء الله باذن الله الكريم فرينتاسنا سايو غادو وشير غري ان شاء الله باذن الله الكريم كل بناني رجينا عمر رباد يولكن على الجامعه نيجي تجيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته